caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Afrika marna ahayd mid kamid ah magaalooyinka ugu amniga wanaagsan ee dalalka Afrika hadda waxay kamid noqonaysaa magaalooyinka burburka lugta gelinaya jabhadda gobolka Amxaarada ka soo jeeda ee Fano la yiraahdo ayaa waxay dagaal qaraar muddo sanad ku dhow waxay u soo socdeen caasimada inay ku soo gaaraan waxay soo qabsadeen magaalooyin iyo gobollo waaweyn oo dalkaasi ka tirsan ugu dambeyntiina waxay cagta soo saareen caasimada Ethiopia dagaal dhaxmaray ayaga iyo ciidamada Ethiopia waxa la xaqiijiyay inay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof tiro kalena ay dhaawacay ka soo gaareen dagaalkii gobolka Amxaarada ka soo bilowday waxa uu si weyn ugu fidayaa caasimada Addis Ababa booliiska magaalada ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen israasaaseen dhaxmartay ayaga iyo ciidamada jabhadda Fano gobolka Amxaarada ka dagaalanta kuwaas oo gudaha u soo galay Addis Ababa tani waxay ka dhigan tahay in Addis qaybo kamid ah hadda ay joogaan jabhaddi haddii Addis Ababa la wareego ama dagaalku uu ku sii fudo waxay ka dhigan tahay in dawladii la afgambiyay ama dawladii Ethiopia ay ku jirto khatar badan hora Abiy Ahmed waxa uu la dagaalamay jabhadda ka dagaalamaysa gobolka Tigray laakiin hadda waa jabhaddaasi uu ka adkaaday kadib markii dawlado kale ay kaalmeeyeen laakiin jabhaddan Fano la yiraahdo ee gobolka Amxaarada ka dagaal ka soo bilowday ee ilaa caasimada soo gaartay wax boqolaal kun oo kiiloomitirna soo jartay hadda caasimadii ayay ku dhowdaa inay qabsato markii la eego tayadeeda iyo tiradoodana waxa la xaqiijiyaa oo la sheegaa in Ethiopiaanka ciidankooda dawladda inaysan ku aadin oo ay la dagaalami karin haddii awooddaas ay leeyihiin gobollo badan ayaa laga soo qabsaday magaalooyin waa ayna difaacan lahaayeen reesaraha Ethiopiana wali ma jirto wax wara oo xaqiisa ka soo baxay iyo dawladda intuba dhinaca kale waxa jira warar tilmaamaya in Ethiopia laftirkeeda ay leedahay awood military oo xoog leh wali ayna dagaalami karto inkastoo ay jabhado u kala go'day dalkaas oo ay gobolladii ku kaceen dawladda kadib markii reesaruhu ay ku eedeeyeen xukun kaligiis talis ah iyo inuu doorashadii boobayo Abiy Ahmed waxa uu muuqdaa inuu ku soo fashilmay gudaha dalkiisa Soomaaliya iyo soo u hanqal taagay inuu bad ka qaato si uu ugu mashquuliyo muwaadiniinta Ethiopia gudaha dalkiisa waxa ka jira ee faqriga iyo shaqo la'aanta dagaalada sukaya dalka ka qarxay iyo sidoo kale dawladii oo sii burburaysa ayuu wuxuu doonayaa inuu ku mashquuliyo si Soomaaliya badeeda u soo qaataan ama bad Soomaaliyeed u helaan lama oga halkay ku dambeyn karto ama ay saldhigan karto xiisadda Ethiopia ka taagan maadaama caasimadii wadankaas ay ciidamada jabhadda Fano hadda qaybo kamid ah ay gaareen oo ay ka dhex dagaalamayaan haddaba sidee u aragtaa dagaalada qaraar ee Ethiopia caasimadooda ka socda ee Addis Ababa muxuu ku dambeyn karaa mustaqbalka Ethiopia damacii Soomaaliya ee guracnaa oo ay lahaydna Ethiopia ma muuqaya maawelintii muwaadiniinteeda u dhigaysay in hadda dhabta ay dareemi doonaan Soomaaliya maxaa uga faa'iido ah ama maxaa faa'iido oo ka heli kartaa burburka Ethiopia maxaa khasaare ah aragtidaada qaybtaas nagula wadaag commentiga muuqaalkana sii share garay haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir si aan kuu siino wararka iyo dhacdooyinka dunida gaar ahaan kuwa Soomaaliya ee noloshaada quseeya